kadib muddo 2 maalmood ah oo wafdigu madaxweyne ku xigeenku hogaaminayay ay magaalada Boorama ku sugnaayeen xaaladda guud ee magaaladuna ay ahayd mid aad u cakiran ayaa maanta waxay uga soo anbabaxeen si ballaaran iyadoo loo sii sagootiyay si aad u diirana wadahadallo ilaa xalay ee wafdiga iyo salaadiinta dhaqanku wada lahaayeen ayaa ahaa kuwa albaabadu ay u xidhan yihiin isla markaana aan saxaafadda loo ogolayn balse maanta ayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Xaaji Cali Cadami uu faahfaahin ka bixiyay kulankaasi waxa uu ku soo gabagaboobay baa la isu sheegay sida cadaba loo wada hadlay shaakiro waa la isaamaxay oo wax la yiri cadadeenu waynaynan kala bixin Boorama anaga nafteedu waa dadaalay waxaanu dhigaynaan caaw cada ku bixin deegaanku waa deegaankeeni dadku waa dadkeeni Boorama waa booramadeedii waxaanu markaa goosanay jawigaas sida hawlyaro kuma samaysanin jawiga maanta aad ku soo baxdeen oo lagu wadacaysaan ciyaar kuma iman xalay wax yar baa seexday waftigayagii xalay oo dhan waa wada hadlaayay dabadeedna tawfiiqdaas wanaagsan baa la kala helay inaynu sidaa isu nabadgeliyeyno oo faraxa ku kala tagno oo isugu soo noqonno waa alxamdulilaahi rabbil caalamiin madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Shire oo intii aan magaalada Boorama ka soo anbabixin soo booqday dadka dhaawaca ah ee ku sugan isbitaalka guud ee magaalada Boorama ee ku dhaawacmay mudaharaadadii maalintii darrada ahayd ayaa uu rajeeyay caafimaad qab degdeg ah waxana isagoo saxaafadda la hadlaya dadkana la dardaarmaya uu yidhi jirto hadii wax la su'aal lahana in wax la xallo ma rabay maantana waxa ugu dambeeyay cid u haysaayeen jirin nabadoo kala tagaynaa waxa weeye dawladda iyo dadkiina degantiiba ixtiraamkiisa ay naga baahan yahay waxa ugu qabanaya oo taariikh jirin hoose ee sayla iyo kasoo iyo Hargeysa oo madal reer Soomaaliland oo madal walaalaha waxa la idinka baahan yahay waliba qoyaanka u badan halkan ee degan inay dadka dhaahisaan inay dadka soo dhaweysaan inay ka baxdaan oo dhalinyaro baahtiina waxbarashadiina aad xoog saartaan oo ka baxdaan qabeelka dadka iska baxdaan si kastaba ha ahaatee natiijooyinka ka soo baxay kalfadhigii ugu horeeyay ee golaha deegaanka ee degmada Saylac uu qabsado ayaa xaalka guud ahaanba magaalada kala dejiyay waxaana dadku ay damaashaado tiro badan ka sameynayeen guud ahaan magaalada Boorama iyo magaalooyin tiro badan oo gobolka Awdala Cabdullah Ali Yusuf on Cable TV Boorama